kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan waa anigoo Zahboy halkan aad daawanaysaan waa maqal YouTube kusoo dhaada muuqaalkana maanta haddaba inta muuqaalka u guda galin daawade haddii ay tahay markuu horeysa aad channelkan soo boqoto subscribe saar si aad u heshid muuqaalada barta mar walba aan soo gelino oo aad xiiso u leh. wiilkani ayaa wuxuu ku nool yahay wadanka Germany maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu ku arkay Facebook gabadhaasi ayuu ku darsaday kadibna uu ka soo aqbashay wuxuu u qoray fariin oo tahay macnaheedu xaaladda ka waran. gabadhani ayaa ma u soo jawaabin, haddana maalin kale ayuu ku celiyay uma soo jawaabin, balse 3 bari kadib ayay u soo jawaabtay. halkaasi ayay ku sheekaysteen xaaladda ka waran iyo ariye ay isdhaafsadeen, walaaltinimana ayaa isku barteen. kadib walaaltinimo markay isku barteen ayaa waxay weydiisay halka uu joogo wiilka ayaa ku yiri waxaan joogaa Germany, sidoo kalena gabadha ay tiri waxaan joogaa wadanka Kenya khaasatan caasimadda Nairobi. haddaba markii xiriirkoodii ay isla socdeen walaaltinimada ayaa xiriirkii kadib waxay u bedesteen jacayl inay nolosha wadaagaan ayay u bedesteen. balse gabadhani ayaa waxay u sheegtay wiilka in hooyadeed ay ku nooshay wadankaasi German, halka kalena ay hadda ay ku nooshay wanagaasi. ay u sheegtay wiilka inay xareysatay line halkaas oo ay sidoo kale ayadana ku imaan doonto wadankaasi Germany. haddaba arrintan wiilka markuu maqlay ayaa uu ku farxay wuxuuna ku dhahay taasi ayaa noo fududaanayso oo waxaa noo sahlayso isku ag inaan imaano, sidoo kalena aan iska soo ag dhawaano. balse sanad kadib ayaa u suurtagashay gabadhii leenkii inuu u soo baxo, sidoo kalena ay u suurtagashay inay wadankaasi Germany ay aado. haddaba gabadhani ayaa baxday, waxay aaday wadankaasi German ay ugu safartay. balse muddo kadib 3 bilood markii laga soo wareegay xiriirkooda uu socdo ayaa wiilkii wuxuu go'aan ku gaaray uuna ku yiri gabadhii waxaan rabaa inaan isguursano. gabadhii ayaa ku tiri arrintani waa adag tahay, balse ani hooyadii kama dhadhacsin kari ee adiga ka soo dhadhacsay. wiilka ayaa ku yiri isku day markii hore, haddii ku diidana aniga ayaa ka dhadhacsinaya. gabadhii ayaa baxday waxaana u tagtay hooyadeed waxay ku tiri hooyo wiil aan markii hore inta soo aadin oo Kenya joogay aan isbaranay oo halkaasi muddo ku dhawaad 2 sano oo xiriir naga dhaxeeyay oo hadda Germany la joogo ayaan rabnaa inaan isguursano. hooyadani ayaa ku tiri ma guursanaysid oo waxaa joogtaa inta 3 bilood kadib mana guursan kartid. arrintii way soo laabatay, gabadhii waxay u imaatay wiilkii ay jeclaayeen ayna ku tiri hooyo way ii diiday, arrintani waa ka dhadhacsin waay. balse wiilka ayaa ku yiri hooyo nambarkeeda sii, aniga ayaa arrintani ka dhadhacsinaya. wiilkii ayaa wuxuu isku dayay inuu hooyo ka dhadhacsiyo, wuxuuna ku yiri hooyo waxaa kaaga soo duuntay gabadhaada si sharaf leh loona soo duunto gabdhaha Soomaaliyeed ayaan kaaga soo duuntay. sidoo kale aniga wiil fiican ayaan ahay, waxba balwad lahayna malihi, waxaan rabaa gabadhaada inay siisid. hooyada ayaa ku tiri hooyo si sharaf leh ayaa ila hadashay, sidoo kale hooyada iyo aabahana waalidkaadana si fiican ayay ku soo koriyeen, si dhaqan fiican ayaad ila hadashay oo waa ku mahadsantahay. balse gabadheeda 3 bilood ayay hadda inta joogtaa, hal sano kadib markaas aan ku siin kadib xiriirkoodii ayaa way sii wadeen 2 sano markii ka soo wareegtay, oo sidoo kale ay ka soo wareegtay 2 sano ay u buuxsantay. sanadkina la gaaray ayaa wiilku wuxuu ku yiri arrintay hooyo may ku soo hadal qaatay. gabadhi ayaa ku tiri maya, balse wuxuu ku yiri sanadkii waa la gaaray, waxaan rabaa hooyo inaan u tago, sidoo kalena arrintii oo ballantaheed inaan isla meel dhigno. wiilkii ayaa hooyada ku waxay wuxuuna ku dhahay hooyo sanadkii aan noo qabatay waa la gaaray, balse hooyada ayaa waxay ugu tiri goormee aniga ballankaa qaaday, sidoo kalena aad ila soo hadashay aanan ku dhahay gabadheeda waan ku siin. wiilkani ayaa arrintani murugo ku noqotay, balse asagoo ku fududan ayaa wuxuu ku yiri waa wiilkii maalintii gabadhaada dhahaysay hadda 3 bilood ayay joogtahay, sanad kadib ayaan ku siinay. hooyada ayaa ku tiri aniga weligay saas kuma dhihin. wiilkii asagoo murugaysan ayuu soo baxay, wuxuu u imaaday gabadhii wuxuu ku dhahay
hooyo sidaas ayay tiri, muu jiraa qof kale oo ehelkaada oo arrintani naga caawin karo sidoo kalena ka dhadhacsiin karno? Gabadhi ayaa waxay ku tiri, waxaa jira adeerkay kaasi ayaa nambarkiisa ku siinaa, la xiriir. Isagana uu ku yiri nambarkiisa sii, waxaan dhahay arrintan inuu naga caawiyo ayaan weydiinay. Wuxuu la hadlay adeerkii, arrintii ayuu ka dhadhacsiiyey inay u sheegtay gabadhini ay jeclaayeen 2 sano, sidoo kalena hooyada ay ka qaaday ballan 1 sano, balse markii dambe ay ku tiri aniga weligay ballankaaga adeerka ayaa ku yiri aniga arrintani kama caawin kari, waayo gabadha ayadaa soo korsatay, sidoo kalena halkaasay Jarman geysatay. Arrintan adiga way ugu adagtahay, adiga maxaa jira ee kugu nacday? Ma aqaan, wiilka ayaa yiri mana aqaan ilaa hadda waxay ugu nacday, balse adeerka ayaa ku yiri arrintani ay raalli noqonaysaa, aniga ma galab gari kari, sidoo kalena kama caawin kari. Hadalkii wax dhageysanaa ma laho, wayna u adagtahay arrintan sababtoo gabadha ayadaa soo korsatay, sidoo kalena waddanka Jarman geysatay. Balse markii dambe wiilka ayaa gabadha weydiiyey, wuxuu ku yiri maxaan sameynaa? Gabadha ayaa ku tiri ma aqaano waxaan sameynay, balse xiriirkooda intuu socday gabadha ayaa bilaawday inay gurgurato, sidoo kalena wiilka ay ka jajaakarto qoraalkiisa iyo fariintiisa ay si fiican usi fiirinin. Balse wiilkii markii dambe ayaa ogaaday arrintani inay isla ogaayeen hooyada iyo gabadha, sababta loogu diidayana ay tahay qabiil. Arrintani ayaa waxay ku noqotay wiilka muruga iyo sidoo kale baaxad weyn ayay ku noqotay iyo argagax. Halkaasi ay noloshiisa ay ku noqotay mid ka baaba'do, sidoo kalena mar walba markuu dambe inuu xiriir sameeyo uu ka baqo arrintii hore inay ku dhacdo. Daawada muuqaalka waxaa idiin tabinaya anigoo Zahra Boy, intaa ku kulmi doona muuqaalka xiga adiga idinka taga sidaas iyo nabadgelyo.